بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaantiin waxaa idin rajeynayaa inaa wada caafimaad qabtaan. dhammaanteen ilaahay subxaana watacaala waxaa inoo weydiinayaa raalli ahaanshihiisa. intaas kadib, sidii aan hore isugu ogeyn aan u ballanay walaalihii la socday fideogii hore ee kan ka horeeyey, waxaan ballan qaaday biidnillaah ilaahayna weydiisanaya inuu ii fududeeyo inaa asbuuc kasta soo gudbinaya qiso, isla markaasna anagoo u wada raadinayna si wada jira xalkeedii. wixii ka dhiman amaan ilaaweyna ay igu soo gudbin doontaan biidnillaah, igu reebi doontaan kubantiga. intaas kadib, qisada aan maanta qaadanayno waxaa laga sheekeeyey xilli hore aan baabuur jirin, oon diyaarad jirin, oo gaadiid wax lagu rikaabsado ama ganacsiga wadamo kale lagaga soo rarto jirin, ayaa waxaa la yidhi nin ku noolaa, waxaan u malaynayaa inay ahayd Ciraaq, ayaa safar wuxuu usoo aadi jiray ganacsi Suuriya. isla markaasna wuxuu ka qaadan jiray badeecada, kadibna wuxuu u iibgeyn jiray wadankiisa. sidaas ayay ahayd shaqadiisu. markii kasoo wareegtay waqti dheer, muddo uu sidaa ku ganacsanayay, ayuu gaboobay. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa haddii wad ku daayo, haddii geeri ku dayso, gabow baan ku daynayn. wuu gaboobay, wuu weynaaday, da' baa ka daba timid, dadna wuxuu awoodi waayey inuu maaragtay ganacsigii sii wado. wuxuu lahaa wax awlaada, wiil iyo gabar. wuxuu u yeeray wiilkiisa, kadibna wuxuu ku yiri, aabe, waxaan doonayaa in aan kugu wareejiyo ganacsigayga. sidaa ujeedid waan gaboobay, mana awoodo hadda kadib in aan safarkii kaxeeyo, maaragtay soo raro, aan dib u celiyo. marka waxaan doonayaa, maadaama wiilkaygii tahay, in aan ganacsigii adiga kugu wareejiyo. wuxuu yiri, waayahay aabe. wuxuu u sheegay raggii wanaagsanaa uu maaragtay kasoo iibsan jiray badeecada. kadibna wuxuu ku yiri, waxaad u tegaysaa raggaas, waxaadna ku dhahaysaa waxaan ahay wiilkii hebel, sidaasaad uga soo maaragtay qaadan doontaa waxay aad u baahan tahay. wiilkii sidii buu yeelay. wuxuu tegay wadankii uu maaragtay aabihiis kasoo ganacsan jiray. kadibna wuxuu ku yiri, waxaan ahay wiilkii hebel. si wanaagsan baa loo soo dhaweeyey, lianna odayga wuxuu ahaa nin wanaagsan. markii hore intuuna dirin ka hor wuu la dardaarmay. wuxuu ku yiri, maaragtay ganacsiga iyo waxa sameynaysid oo dhan ilaahay uga cabso, markastana ku dadaal inaa xalaasha maaragtay ka ganacsatid, cidnana aadan dulmin aabe. wuxuu ku yiri, waayahay. wiilkii markuu meeshii tegay, soo iibsaday alaabadiisii, dib ugu soo laabtay wadankiisii, laakiin jidka soo marayo, waa garanaysaan markii gaadiid maaragtay awr ku raran tahay, sida gaariga oo kale ma ahan, shidaal inta lagu shubo maaragtay iskama soconayso. waxay u baahantay in la istaajiyo, in rarka laga dejiyo, in cabaar la nasiyo, habeen meesha lagu hoydo, maaragtay awrkii la sii daayo, oo maaragtay cabaar uu isaga naftirkiisa waa bini aadan, xayawaan weeye, xayawaankan in loo naxariisto weeyaan. wiilkii markuu meel dhexe soo socday, ayay waxay ku noqotay xilli habeen ah. wuxuu is yiri, caawa halkaan ayaad seexan doontaa. laakiin markaas uu meesha yimid waa xilli gabalgaab ah. wuxuu ratigii buu awrtii u watay, wuxuu ka dhigay rarka. dabeetana hogaankiibuu maaragtay waxaa la dhahaa maaragtay surka loogu tuuraa. ratiga markuu raran yahay laga dhigo rarka, saasa u malaynayaa, ma hubo. marka wuxuu kusii daayay calaa kulli xaal inuu maaragtay isagana caws iska cuno, cabaar iska nasto, isagana inuu alaabtii maaragtay rarkii meel isugu hagaajiyo, kadibna uu cunto karsado isagoo meeshii jooga. meesha dabcan cidaa degan oo dad baa degan. weliba waagi hore waxaa la sheegaa inay sameyn jireen safarada noocaas oo kale, haddii arkaan cid meesha degan wadada, inay lacag siiyaan, habeenkaana ay marti geliso dadka maaragtay ganacsatada oo safar ku jira. wiilkii meesha dad baa ka dhowaa, degsiimaal dhahaa, cidaa deganaa, yacni dad baa deganaa. wuxuu sameeyey, wuxuu arkay gabar yar aada u qurux badan, oo malaha dadka meeshu ku degayo oo doonayay inuu caawa joogo degan. gabadhiiba wuxuu maagay oo damcay inuu xumaan ku sameeyo, laakiin wuxuu xusuustay hadalkii aabihiis oo ahaa, aabe, cidna ha dulminin, cidnana xumaan ha ku sameynin. laakiin wuxuu xusuustay
markuu maaragtay damcay inuu sameeyo xumaantii, gabadhiina uu gacantiisii gaartay jirkeeda, laakiin wax weyn oo maaragtay uuna ku sameynin, walow dembigu uuna maaragtay lahayn yaraysi. meel ka mida jirkeeda ayuu taabtay. kadibna wuxuu xusuustay hadalkii aabihiis oo ahaa cidna ha dulminin. wuu iska soo laabtay, alaabtiisii wuu soo rartay. xilligii markii waagu beriyey wuxuu kusoo laabtay magaaladiisii. markuu soo galay, marka intuu wiilku xaaladaas ku jiray, gurigoodii aabihiisii wuxuu ka yimid walaashiis iyo reerkoodii. magaaladu biyogelin ma lahan oo xilligan oo kale hadda la tadawuray ma ahan. waxaa jirtay in uu jiray nin maarata xaafadda biyaha u gegeeyo oo gaari gacan caagado ku qaada. ninkaas biyuhu reerka u keeni jiray. waa nin weyn oo 50 sano meelahaas ku dhow oo macmiil reerka la ah. albaabku soo gargaraacay. marka dhismaha guriga wuxuu lahaa dabaq yar buu ahaa. odaygu wuxuu fadhiyay meel kore oo balkoon ah. wuxuu ka arki karay wix albaabka soo gelaya, qofkii baxaya iyo maarata banaanka hore. albaabka la soo gargaraacay. gabadha yareed baa soo orday, albaabkii bay furtay. ninkii guduhu u dhaafay, biyihiibuu soo shubay. iyadana albaabkii sii taagnayd intuu soo baxayo si ay u xirto. waa adeerkii taqaanay oo ixtiraami jirtay oo biyaha guriga u shubi jiray. markuu sii dhaafayey ayuu gabadha yareed jirkeeda meel kamida gacanta saaray. wuu iska tegey. aabihii waa u jeeda xaaladda dhacaysa. gabadha yareed waa isku naxday, albaabkii waa iska xirtay. odaygana sidiibuu ku tegay. wax intaa dhaafsiisan kumuu sameyn. cabaar markii la joogay, laakiin odaygii meeshiisii uu fadhiyo ayaa waxaa soo galay wiilkii iyo safarkii uu waday. odaygu wuu u yeeray wiilkii markuu nastay kadib. wuxuu ku yidhi aabe soo fariiso, maxaad samaysay? wuxuu ku yidhi aabe waan tegey, wadankii baan tegey, waa laysoo dhaweeyey, maaragtay alaabteydii waan soo gatay, waan soo joogay. markaasuu wuxuu yidhi maxaa kaloo samaysay? intaa jidka kusoo jirtay maxaa aragtay? yaa la kulantay? maxaa kaasoo horbaxay? wuxuu yidhi aabe, wiilkii yaraa wuu ooyey. markaa wuxuu yidhi aabe, khalad baa iga dhacay. waddada markaan soo socday waxaan galay khaladka noocaasa. wuxuu uga sheekeeyey qisadii dhex madhay isagii gabadha yareed uu kula kulmay meeshuu ku nasanayey. aabihiis wuxuu uga sheekeeyey isagana qisadii ka dhacday guriga. wuxuu yidhi ninkii biyaha inoo shubi jiray ee ninka waayeelka ahaa ee weligan inoo imaan jiray ee magaranaysa ayaa walaashaa sidaa ku sameeyey. adigu waxaad ku xadgudubtay gabar islaameed, waxaana lagu xadgudbay walaasha. haddii intaa in dhaafsiisan aa ku sameyn lahayd gabadha kale, walaashaana waxaa lagu sameyn lahaa intaa in dhaafsiisan. wuxuu ku yidhi aabe, wixii aad ku samaysayd gabar kale ama waxaa laga jarayaa walaasha oo miskiina waxba ogeyn sida walaasha oo kale, ama ilmo aa dhashay, ama ilmahaa dhashay ilmaha uu dhali doono. sheekada nuxurkeedu wuxuu yahay dadka maaragtay caadaystay inay tacadiga ku sameeyaan gabdhaha ha ogaadaan inay tahay waxay meel u dhigeen walaalahood oon wax dembiya lahayn. marka laga soo tago dembigu isagu sameeyey, gabadh islaameedu ku xadgudbay, haddana waxaa jira in uu dhibaato u soo jiidayo walaashiis ama ubadka uu dhali doono ama xaaskiisa guriga u joogto haddii uu xaas leeyahay oo maaragtay nin reer leeyahay. ilaahay uga cabsada walaalihiin, hana dhibaateynina gabdhaha islaameed. intaa markaan kaga soo imaado qisada, maxaan markaan taxliilino aan ka eegi karnaa? qof kasta, wiil iyo gabar, ilmo kasta, qof kasta oo bini aadan oo koonka maraya waxaa dhalay aabiyo hooyo, wuxuuna kasoo jeedaa guri. wuxuuna ka turjumayaa markuu banaanka usoo baxo guriga iyo akhlaaqdiisa. haddii uu ahaa ilmo la ihmaalgareeyey, aan cidna wuxu sheegin, aan lagu dhahin dadka ha dulminin, dadkuu dulminayaa. dhibaatadii iyo tarbiya xumadii uu gurigiisa kala yimidna waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa mujtamaca. haddii uu ahaa ilmo wanaagsan oo guri wanaagsan lagu soo tarbiyeyna, wuxuu noqonayaa mid laga ammaan helo oo dadka inuu wanaajiyo ma ahane aan wax dhibaataa u geysan. waxaa laga sheekeeyey nin weyn oo 80 jir ah. qisadiisa wuxuu yidhi, waxaan ka dhageystay oo ka sheekeeyey Dr. Jaasim Mudawic oo ah nin ka hadla tarbiyadda caruurta iyo magaranaysaa wacyigelinta bulshada. wuxuu yidhi waan la kulmay ninka waa Sacuudiyaan. wuxuu igu yidhi markaan yaraa aabbahay wuxuu igu dhihi jiray nin
madluuman laa daaliman. seexo oo barkintaada madaxaaga barkinta dhig adoo lagu dulmiyey, laakiin iska jir inaad seexatid hurdo adigoo cid soo dulmiyey. sidee ku seexan kartaa oo hurdo macaan ku heli kartaa adigoo qof bini aadana dulmiyey oo ka oohiyey, adigoo xalaalaystay gabar walaashaa oo kale ah cirdigeeda, oo ku tuntay nolosheeda, oo damiray sharafteeda. dhalinyarada waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada, rag iyo dumarba. waalidkana waxaan leeyahay ilmihiina ilaahay uga cabsada. ilmuhu waa ammaano, waa mas-uuliyad. ilaahay subxaana watacaalana maalinta qiyaama qof kasta wuu weydiinaya wuxuu mas-uuliyadda ka ahaa. qof kasta waa la weydiinaya wixii mas-uuliyadda uu ka ahaa. ilmahaaga waa lagu weydiinaya. hadduu cid dulmiyona dembi baad ku leedahay, hadduu cid wanaajiyona ajar baad ku leedahay. ilmaha banaanka maraya ama qof kastoo bini aadanana wuxuu ka turjumayaa aabihii iyo hooyadii soo kariyey. xitaa hadday kala tagaan aabaha iyo hooyada oo mid ka mid ah la noolyahay ilmuhu, waxaa loo baahan yahay inay wada mushaarakeeyaan oo ka wada qayb qaataan tarbiyadiisa. waxaa la dhahaa badi dhinac keliya wax ma tarbiyeyn karo, laakiin waxaa loo baahan yahay ilmaha in la wada korsado, haddii la wada joogo iyo haddii la kala tegayba. waxaa loo baahan yahay ilmaha in lala fariisto, in la wareysto, in loo sheego wixii dhibaato ah oo dembi u keenaya iyo wixii maaragtay wanaag uu fali lahaa. dulmigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha damira dadka noloshooda. waadna ogtihiin ducada qofka madluumka ah ilaahay subxaana watacaala wuu aqbalaa, wax xijaaban uma dhexeeyaan. hadduu dhaho yaa rabbi waxay ku dhacaysaa automatically qofkii dulmiyey. ilaahay subxaana watacaala waxaan ka magan gallay inaan cid dulmino iyo in nala dulmiyoba. ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi dulmiga nafteyda waa ka xarimay, falaa tadaalamu, ha isdulminina idinkuna. qisadan waxay xambaarsan tahay macno weyn. intaad gabar islaameed u geysato ayaa loo geysanayaa walaasha, gabadhaada, bal ee hooyadaa ama xaaskaaga. marka ilaahay subxaana watacaala uga baqa inaad dhibaato usoo jiidaan gabdho masaakiina ama walaalihiina ah ama maaragtay xaasiskiina ah ama aad dhasheen ama aad badhali doontaan oon hadda adduunka joogin. imise qisaa dhacday, imisaa wiil intuu gabar ku ciyaaray oo cirdigeedii burburiyey oo ku tuntay, isagoo wiil yar ah markuu guursaday ee gabar dhalay ayaa loo galay sidii uu u galay gabadhiisa. gabadha islaameed siduu u galay ayaa loo galay gabadhiisa. iska ilaaliya dulmiga, ha dulminina naftiina, hana dulminina dadka kale, hana seexan oo madaxaaga dhulka ha dhigin oo hurdo la raaxa leh ha seexan adigoo soo dulmiyey qof miskiina oo laga yaabo adoo hurda, adoo daalimoo hurda, inuu madluumku intuu kaco dhaho yaa rabbi. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.